sahra fannaankee ayaad isleedahay ama aad jeclaan lahayd inaad la qaado hees talantaaliya oo aanad weli la qaadin? horta anu niman badan oo fanaaniina baan la heesay oo imika tiro ma koobi karaba ilaa dhowr iyo 10 nin oo fanaaniina baan la heesay. imikana waan jeclay runtii fanaaniin ninka la yiraahdo cawaale yare aad baan u jeclay ninka haddii aan insha Allah dibadda imika tago inaan la soo heeso waan jeclahay. matalan nimankii hore waaweynaa fanaaniinta ahaa iyaga kulli kuwa ma garanaysaa waan jeclaan lahaa qaar badanna waan kala soo heesay waan jeclay runtii dhalinyartan dambe inaan ka cawaalo oo kale waan jeclay inaan la heeso inamada dibadda jooga fanaaniinta kale halka joogta matalan xidigaha kale ay kamid yihiin wallahi 2 iyo 3 qof iyo kuwan dambe imika yimid moodba inta kale oo dhan waan la heesay. mursal waan la heesay, BK waan la heesay, Cira waan la heesay, waan ma garanaysaa fanaaniinta dibadda joogta laakiin waxaan jeclay inaan la heeso inaan ninkaan la heeso jeclay. isagana aad baan u salaamay hadduu fariinta dhageysto. waa tahay sahra dhinaca muusikada kuwee ayaad dooran lahayd muusishiinada? runtii nimanka muusigiistayaasha jooga Somaliland furule subxaayo isaguna heesa badan ii tumi jiray, saxardiid cadceed yare oo imika isaguna heesaha ii wada oo ina yaro aad iyo aad imika u gacan macaan, cabdi yare dhammaan. haddana waxaan jeclay runtii muusigiisaan aad u jecelahay ninka la yiraahdo Sheego Bishaar aad baan u jecelahay inaan ninkaana aan heesa ka tunto. marka walaalo adigana aad iyo aad baan ku salaamayaa dadweynaheena dhageysanayana waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin, aad baan idin salaamayaa. waa tahay sahra bal haatan iyo dhinaca iyo talantaaliga ayaynu jaleeci doonaa. hees talantaaliya ayaa soo qaban doona. sida duda jaleeliyo darar weynayo naftayda